xaflad siyaarsara loo soo agaasimo xilka lagu kala wareejinayay gudoomiyaha hore gobolka Daadmareer Yuusuf Ibrahim Geedi iyo gudoomiyaha cusub ee haatan loo soo magacaabay xilka gudoomiyanimo Jamaal Xuseen Hurre ayaa maanta ka dhacday xarunta gobolka Daadmareer xafladan ay ka soo qayb galeen agaasimaha degmooyinka iyo horumarinta dawladaha hoose Soomaaliland la taliyaha wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland dhinaca amniga maamulka heer gobol iyo heer degmo taliyaha qaybta gobolka gudoomiyaha waxbarashada gobolka Daadmareer cuqaal haween dhalinyaro iyo waliba bulshada qaybaheeda kala duwan xafladan xilka lagu kala wareejinayay labada gudoomiye ayaa waxa ugu horeynba ka hadlay duqa degmada Oodweyne Cabdixakiin Nuur Muuse hambalyo u diray ballanqaadyadii uu oofiyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo isagoo oo sii sagootiyay gudoomiyaha hore gobolka soona dhaweeyay gudoomiyaha cusub arrimaha Soomaaliland ku weyn waxaan halkan aad iyo aad jecelahay inaan ka hambaliyeeyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo markii hore uu ku jiray ballanqaadyadiisii runtii in badan ka dhabeeyay tan ay maanta u fadhinaan ay ku jirtay oo runtii waxaan u soonahay aan aad iyo aad u sii sagootayna barsaabkayga hore Yuusuf Ibrahim Geedi waxaan soo dhaweynaynaa barsaabkayga cusub Jamaal Xuseen Hurre aan Ilaahay uga baryayno inuu Ilaahay xilkiisa u fududeeyo asaguna ka hadlay madashan xil wareejinta gudoomiyaha hore gobolka Daadmareer Yuusuf Ibrahim Geedi oo ka sheekeeyay waxqabadkiisii muddadii uu xilka hayay waxaan dhagax dhigay wadada waxaan dhagax dhigay batroolka ugu dambeyntii waxaa ka hadlay madashan xil wareejinta gudoomiyaha cusub ee gobolka Daadmareer Jamaal Xuseen Hurre hadaladiisina waxaa ka mid ah in dhalinyarada Daadmareer aan kor u qaado in ciyaaraha oo ay guul ka gaaraan ciyaaraha gobolada soo saaran runtii in ballanqaadyada aan samaynayo waxa aniga xaggayga ka dhammaystiran sidii aan u fulin lahaa iyagoo ay badnaayeen mas'uuliyiinta ka hadashay xafladan xil wareejinta ayaa waxaa ka mid ah agaasimaha degmooyinka iyo horumarinta dawladaha hoose Soomaaliland Maxamed Cali Maxamed la taliyaha wasiirka arrimaha gudaha dhinaca amniga Muuse Cabdilaahi Mahad taliyaha qaybta gobolka Maxamed Cilmi Yaasiin gudoomiyaha waxbarashada gobolka Daadmareer Kaysa Cabdi Ducaale Caaqil Maxamed Biixi Cabdi maanta sheegay inay soo dhaweynayaan gudoomiyaha cusub siina sagootinayaan gudoomiyihii hore si hagar la'aan ula shaqaynayaan gudoomiyahan loo soo magacaabay ugu dambeyntii gudoomiyihii hore waxa uu si rasmi ah xilkii ugu wareejiyay gudoomiyaha cusub iyada oo sharaxaad sharafyana la gudoonsiiyay gudoomiyihii hore gobolka iyo gudoomiyaha waxbarashada gobolka Daadmareer qaar ka mid ah warbaahinta ka howlgasha gobolka waa qaadan Maxamed telefishinka caalamiga Somali Channel magaalada Oodweyne